السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم يخربون بيوتا بأيديهم عليهم الجلال عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. aayadaha quraanka ah iminkana waxaan u yeedhayaa adeer heebaan oo ah aas-aasihii dugsigeena ahna guddiga waalidiinta iyo guddiga xaafadaba ah wuxuu ka mid ahaa adeer heebaan dadkii iskuulkeena aas-aasay iyaga oo arday aad u tireer lagu aas-aasay haddana maasha allah ardayda intaa leeg ay yihiin ku soo dhawow adeer heebaan سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد halkan waxaan ka salaamayaa xafladdan sida qiimaha loo soo abaabulay ee sharafta leh macallimiinta maamulaha dugsiga oo sida runta ninkaasi nin aad u soo halgamay una fiican xaafadana koob soo kiciyey waxaa kale soo dhaweynayaa mutacalimiinta iyo odayaasha iyo ardayda yaan soo dhaweynayaa haddii aan ka warramo aasaaskii dugsiga kolley aniga ayuu igu yimiday xaafadda khaalid markaa wuxuu waxaan doonayaa xaafadda inaan ka sameeyo iskuul waxaan doonayaa inaad garab qabato aad ila raajiso meel wax ku dhigo kolley waan la raadiyey waan la abaabulay waan la dhigaalay sida runtaa waxaan ogaa anigu oo ka bilaabay 14 arday isagoo dhex jooga maantana wakaa aad arkaysiin marihii ka dhashay yacni aasaaskiisii ninkaasi kolley suu iga warramay aniga inuu u kacay barigiisuu u kacay u doontay inuu ka soo xoogsado dee markuu geli ku maqnaana dee kolley soomaalidu waa taqaaniine kolley way iska dhib badan tahay dhibo badani markay ka soo gaadheen wuxuu ku tashaday inuu gobolkiisii ku noqdo uu u faa'iideeyo uu wax baro halkaasi way leedahay meel dad wax laga baro iyo meel laga faa'iideysto way leedahay saasuu ku aasaasay wadda dugsiga waanu mahadsan yahay annaguna waan garab qabanay waxaanu ku dardaarayaa waalidiinta iyo ardayda
sida fiican ay wax u bartaan iyo waalidiinta oo iyaguna ku dadaalay ardaydoodha inay ku darsadaan dugsigan wuxuu faa'iido noo keenay annagu waxaan allaa halkan jeexismaan diibka halkan marto oo kolku xilku jaaba daadkoo dadka qaadaa ardayda iyadii daadku qaadayay in badan buu ka wariyey maanta dugsigani in badan oo beriidka u dooranaysay qaaliga oo baraxa u dooranaysay iyo magaalada ayuu halkan maanta kolkay beriidka u baxaan aqalkooguna ay galayaanay haddana soo noqonayaan faa'iido weyn weeye taas faa'iido aad u weyn weeye waxaan leeyahay aan u ducaynayaa inuu dugsigani hore u socdo inuu guulaysto wakaa midhihiisii aad arkaysiin waxaa ku xaafadda ku dardaaraya inay ku darsadeen carruurta inta hadhayna inay ku darsadaan ayna iskaga digin magaalada saabay ka dhib badan tahay waxaana lagu ducaynayaa inuu dugsigani dugsi faa'iidana u noqdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maadsan yahay adeer heebaan waxaan iminkana guud ahaan guddiga xaafadda sheekh cusmaan gudoomiyaha xaafadda sheekh cusmaan ahna xubin ka tirsan iskuulkeena oo ah guddiga inoogu jira xaafaddeena ayaan ku soo dhawaynaynaa adeer maxuud abiraan ku soo dhawaada falalka fadal mashkuura horta waxaan salaamayaa marwooyin iyo mudanayaalba inta iskugu timid halkaa xafladda wanaagsane sida fiican loo soo abaabulay ayaan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dugsiga kenya sidii ku soo dhismay iyo waa ka wada joogay weeyaan inta soo hiigsanaysan waan ognahay ee igu soo fiiri doontaa ilaahay idankiisa waxaan baryaynaa kii lagu fitixaada ee maaragtaa ubadku wax ku bartaan ee kor u kaca iyaan ilaahay ka baryaynaa macallimiinta waxay dhigaysan ilaahay ha gargaara xaggiisa ilaahay ka gargaaray inay iyaduna dadaalayso waan arkaynaa si fiican inay u dadaalaysana waan arkaynaa macallimiintu haddaba ha xagaldaacinin oo hadday carruurtu googoysiyo wax la soo baxdo macallinku dee u xagaldaacaa oo waa maxay xagaydakiadaba ilaahayna waxaan baryaynaa bisheeda faafaha iyo farxad inaan ku gaadhno in carruurta oo aad wax u bartay aan ku gaadhno in iyadoo tarbiyadda carruurta aan ku gaadhno iyaan ilaahayna weydiisanaynaa sidaa darteed ilaahay noo aqbale waa inaan dee inaguna xaggeena ka dadaalnaa hadday odaya tahay iyo hadday macallimiin tahay iyo hadday waalidiinta tahayba waalidiinta ubadkaa dhalay waa inaan xagga yagana ka dadaalnaa oo ilaahayna lagu garabgalaya ka dadaalnaa assalaamu calaykum أفكا وسائل وحبرشدة الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أي رسحة حريريها ما هذا يفتح وسائل وحبرشدة وسائل وحبرشدة لطريان وحي وحبرشدة وحبة المقصود لي مركا وحبوها الله يا مقع قويها إن شاء الله تعالى waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan kala soo qayb galo xafladda sanad dugsiyeedka dugsiga hoose dhexe ee mustaqbal oo run ahaantii aan aad ugu hambalyaynayo aasaasayaasha iskuulkan oo muhiimad weyn iyo maaragtaanay qiimo weyn ugu fadhiya dadka deegaankan ama xaafadan degan xaasleyda la yidhaahdo oo aan iyagu haysan iskuul ama dugsi أساسية أو برشة أساسية وصلت فيها حيثن ولكن خالد وكان فكرة
lagu wadaleelayo dugsigan hoose dhexe run ahaantiina dugsiga ugu dhow xaafadan haddii la eego wuxuu ku yaallaa sheekh ismaan buu ku yaallaa waynu arkaynaa waynu dareemi karnaa baahida weyn ee ay xaafaddu u qabto in iskuul noocan oo kale ah la asaaso aad baan ugu hambalyaynayaa aad baana ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashaduna aad iyo aad bay har iyo habeenba uga shaqaysaa uguna heelan tahay sidii tayada waxbarashada waddanka somalilan ay uga shaqayn lahayd ay u horumarin lahayd waayo haddii waxbarashadu ay tayo fiican yeelato ayaa dadkuna horumar u gaari karaa oo dhaqaalo fiicanna u heli karaa marka juhdigaas iyo dadaalkaa faraha badan leh waxaa maanta hormood inooga ah wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane cabdilaahi ibraahim habane oo isagoo har iyo habeenba u heelan sidii waxbarashada uu uga madhanin lahaa anaguna aad iyo aad baanu arrintaa uga caawinaa uguna taageernaa oo waxaanu nahay technical advisors inta badan ee wasaaradda waxbarashada la shaqeeya dhinac kale haddii aan ka eego tirada ardayda aan waxbarasho aasaasiya haysanin somalilan way badan tahay waayo statisticskii ugu dambeeyey ee UNFPA ay soo saartay waxa ay ku sheegaysaa in 800 oo kun oo qof caruuri oo somalilan ay yihiin school age population ardayda macnaha iskuul aadi karta ee u dhaxaysa da'da 6 ilaa 17 jir ardayda somalilan dhigatada dugsiyada marka la eego dugsiyada hoose dhexe ilaa dugsiyada sarena qiyaastoodu waxay gaaraysaa ilaa 350 kun halkaa waxaa ka soo baxaya in arday aad u tiro badani oo ku dhow ilaa 400 kun aanay iskuul aadin ama aanay access u helin ama ay degan yihiin meelo baadiye ah ama ay darbiyada ay joogaan marka iskuulkan aad baan ugu faraxsanahay inuu Khalid Buway noo asaaso oo uu ka qayb qaato in la kordhiyo tirada ardayda ee dugsiyada hoose dhexe ee soo galaysa ama isqoraysa aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii waxa weeyaan mid uun baan ku dardaari lahaa oo qolada maamulka iskuulka ku dardaari lahaa iskuullada private gaar ahaan waxaa jirta tirada ardaydu inay korodho oo ay badato marka classeska ardayda tiradoodu yaanay ku badan waa in la yareeyaa tirada ardayda classki ilaa ugu badnaan 35 arday classka loo maamuli karo oo tayada waxbarashaduna ay u fiicnaato aad baan idinku hambalyaynayaa aad iyo aad wasaaradda waxbarashadana waad ka gaarsiinayaa meelaha qiimaha iyo waxqabadka wanaagsan ee aad muujiseen muddadii iskuulkani u shaqaynayay insha allahu tacaala khayrna waan idin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بروفيسور محمد هايجر على هذا وحويان لطريقها وسارة وحبرشة جود السومال لانتا ما يعني كرمير ولا طريقة وسارة وحبرشة السومال لانتا إمي كانوا حنقصوا دويننا كرمير كي وسارة وحبرشة أقابل سنة قيت سكول كنا إن محن كنا أحمد موسى تيكسي ووسارة وحبرشة جوبلكا أقابل سنة سكول كنا أنا هو حبوغالي يو حنباليو يو معدنا قوي جيدينيا كنت دلك سوى بابري حفلتين مامو كي معلميت waxaan kaloo halkani ogaadin jeedinaya amaan mahadnaq u jeedinaya waalidiinta iyo ardayda ka soo qayb gala xafladda anigoo ku hadlaya magacii wasaaradda waxbarashada gobolka iskuulkan waxa weeyaan mustaqbal horta waxa weeyaan waa iskuul xaaladihii loo aasaasay ama sababihii loo aasaasay waalidiintii baa ka soo sheekeeyey waxay noqotay mid aad iyo aad loogu baahan yahay oo xaafaddu u baahan tahay sababtoo ah waxa weeye iskuul wax qabliga oo iyagu dhow iskuulka shaqsnaa marka ardaydiina way ka badatay masaafadiina way ku fogaatay marka waxay sababta loo aasaasay baa tahay wasaaradduna way soo dhaweysay wayna ka aqbashay codsigoogii wixii ama service ama muxuu ahaa manhaj waxbarasho ee wasaaraddu ay gobolka iskuuladana in ay ka qayb qaataan waxa weeyaan waan ku boorinayaa ama waan ugu dadaalaynaa wixii xagga wasaaradda ka xidhnaa annaga goobjoogka ama la socodsiinayna waxaan kaloo halkan igu soo jeedinayaa mahadnaq aasaasihii dugsiga Khalid iyo inamadii la gacan qabtay ee ilaa heerka maanta soo gaarsiiyey aad iyo aad baan ugu bogaadinay sababtoo waxa weeye midhahaasay soo saareen
maanta la arkaya midhii ama hamigii khaali waa kuwa maanta muuqda sababtoo waxa weeye wuxuu ka damqaday oo jirkiisu dareemay jiilka ama da'yartaa halkaa mustaqbalkooda ku lumayo marka waxa weeyaan juhdigii iyo dadaalkii ay geliyeen hadday waalidiin tahay xaafadda iyo hadday macallimiin tahay iyo hadday maamulka tahayba runtii aad iyo aad baan ka wasaarad ahaan ugu mahadnaqanaa sababtoo baahi meesha taalehay baahi xaafadda taalehay marka waxa weeyaan waxaan hambaryo iyo bogaadin iyo dadaalba iyo si walba ula hadlayaa ama uu soo dhaweynayaa macallimiinta iyo maamulka dugsiga ardaydana waxaan leeyahay halkiina waxbarashada ka sii wada fasax baad gashaysaa inaas dhiganina waxa weeye guryihiinna waxbarashada kusii wata waalidka waxaan leeyahay ardaygu kolkuu iskuulka ka tago waalidkii iskuulku ka yimid laakiin waalidkii kale la joogaa waxa weeyaan waa inaad ardayga habeenkii ku kontarooshaa inuu interfisher ama wixii au soo dhigtay intii au dugsiga jiray ama malcaamadda waxa weeye waa inaad ku kontarooshaan ardayga waxbarashadiisu kama soo hadho waalidkaa la hadlaya ardayga waxbarashadiisu kama soo hadho ma bayska ardaygu kama soo hadho guriga haddii lagu jeegaran waayo maanta wixii loo soo dhigay oo caawa au lagu jeegaran waayo waxa weeye cashirba casharku ka dambeeya siduu isku duldhigay marka dambe hiibis ku noqonaya ama wuu isfuulaya hadhow ardayga meel ka soo qabta male marka waalidka waxaan kula talinaya ardaygu markuu fasaxa galo ciyaalku kubad bay doontaan ha ciyaaraan laakiin waxa weeyaan waqtigii awalba wax dhigan jira habeenkii iyana faraha laga qaadin waxa weeyaan waxaan waa ilmi waa ilmahan waa caruur waxa weeyaan xusuustiisi waxa weeyaan gacan ku hayn weeye gacan ku haynta haddii la sii daayo hadhow waxa weeyaan bayska uu ka lumaya bayskaas hadduu ka lumana ardaygu waxa weeye 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 hadduu gaaro arday aan bays lahayn ma soconay waxa loo socon midka arday waalidiinta waxaan kula talinayaa fasaxa ardayga yaana faraha laga qaadina sideeda alwaayo salaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh maamulaheena halganaageena aasaasaheena iskuulka halkaas soo gaarsiiyey maamulaha la'aantii iskuulkeenu halkaa muu soo gaadheen waxaan idinka kusoo dhaweynayaa maamulaha iskuulka loo sacabido maamule khaalid aadan cabdi wasaaradda waxbarashada heer qaran iyo heer gobol waalidiinta marti sharafta kale maamooyinka hooyooyinka ardayda kulli waxaan idinku salaamayaa sala saxaafadda kulli waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi salaam anigu runtii marka hore waxban doonaya inaan xagga dambe ka soo galo khudbaddo laakiin markaan arkay maadaama ay fadhiyaan waxa weeyaan marti sharaftooda ay ku dhigin waxaan sinintaani kaa caajisay waxaad uga warantaa bal taariikhdii iyo halgankii aad la soo martay iskuulka si iyaguna u noqdaan kuwa wax ka og iskuulkeennii waxaa laga yaabaa dad badan oo aan ogeyn taariikhda iskuulka inay maanta inala joogaan laakiin waxaan ugu talagalay baa inaan yar iftiimiyo taariikhdii iskuulkeena iskuulkeena mustaqbalka dugsiga hoose dhexe waxaa la furay 2014 bishii labaad maantana waa 2016 bishii shanaad waa 2 sano iyo 3 bilood wixii iskuulkaasi jiraa iskuulkaa waxaan ku bilaabay markii aan aasaasay wata fikirkaasi ugu dhashay anigoo jaamacadda ku jira jaamacadda camdigu fikirkaasi ugu dhashay maalin maalmaha ka mid aan xaafadda u yimid wiilaan saaxiib nahay xaafaddaan eegay waxaan arkay xaafadda bila iskuula jaamacaddaan waqtigaa ku jiray ilaa iyo intaan bari ka soo shaqaynayay habeen walba waxaan ku seexan jiray waan ku soo toosi jiray talo meeshii iskuul baa laga furay mise lagama furay markii aan dadka la soo hadlay waxay ii sheegeen xaafaddii weli sii bilaa iskuul u tahay waxaan goostay markaa inaan bari iskaga imaado oo aan dayda yartayda iyo waxa weeye bulshadayda aan wax taro anigoon ugu talagelin inaan macaash iyo lacaga ka faa'iido waad ogtiinoo 12 arday ayaan hal sano uga imanayay xaafadda xalane waad dareemi kartaa transportationka ama safarka aan soo galayo waad dareemi kartaan kulley 12 arday ayaan hal sano oo dhan ugu dhigay weliba waqtigaana waxaan ku jirnay ilaa inka waan ku jirnay guri kala ah oo weliba qaali ahaa haddana waxaasoo dhan iimay muuqana waxay ii muuqatay da'ya taayare naqan ee marna ubadkaygiya marna ila dhashay walaalahaya markaan arkay dooxa ay ka talaabayaan markaan arkay hooyooyinka bariiga iyo bacaha isdabooda ee geynaya suuqa si ay ubadkooga bariiga u geeyaan waxaan dareemay markaasi inay baahi weyn gobolkeennii taalo waxaan goostay markaa intaan macaashii faa'iido raadin lahaa inaan raadiyo ilmo yaroo waxbaro oo gobolkayga ah taasaan goostay horta dareenkaas maalintaan imiday xaafadan anu cid kamaan garanay runtaa wanaagsan anigoo reer boorama haddana
laakiin odayaashii xaafadda guddigaa raadsaday oo ay ka mid ahaayeen maxamed waaberi hiiraash iyo adeer heebaan kulligood markaan talada u bandhigay way la qaateen way garab galeen hawshii way la wadeen maanta waxaad ogtihiin alxamdulilaah iskuulkii 12 arday ahaa waa 200 ku dhowaad maanta waa 200 ayuu cagacagaynaya macallinkii kaliya atay aniga dhex joogay meeshuna maanta waa 6 macallin waxaan ku joognaa iskuulkeena waa ilaahay mahadi weeyaan waxa weeyaan hadaba waalidiintii maadaama ay maanta meesha joogaan hal miduma ka codsan lahaa waxaan idinka codsan lahaa in idiin sheegi lahaa maanta anigu waxaan ugu talagalo fikirkaas markii ugu abuurmaya ay rajadaydu ahayd inaan helno ubad yaroo aqoon leh ubad yaroo tarbiyada ubad yaroo waxbarta oo ka muuqda ardayda kale ee qeyrkooda ulada maanta iskuulka anigu waan faaninayn wasaaradda waxbarashadu waa ka markhaatiye ulada iskuulku maanta magacooga way qoraan af soomaaligana way qori karaan waanad ogtihiinoo dee 100% wax ma noqdaan waa laga yaabaa arday madax adag iyo arday waxoogaa xaalad caafimaad inuu dib u dhaco laakiin majority baa la qiimeeya waxaa jira majority iyo minority u xeraa inta badan iyo inta yar inta badan ardaydu waxay qoraan koowaadka iyagoo ah af soomaaliga wayna akhriyi karaan waa ilaahay mahadii weeyaan aniga macallimiinta ay la dhigtaaba meesha waad ogtihiinoo wax faa'iidaa kuma hayno aan ahayn inaan ubadkeega ay wax barno oo aan wax tarno markii aan asaasayay iskuulkan dhowr jeer ayaa waxay igu dhalatay inaan isiri wana waalidku marka wax la furayo wax cusub marka la bilaabayo siday ku aamintaa way adag tahay siday ku aaminaan aad u adag tahay 12 arday sanadka dhex joogay marka qaar waxaan isku dayi jiray kolba islaan inaan gooni la kulmo oo ka dhaadhiciyo in xaafadda iskuul u baahanta dumarka qaar baa iga oran jiray horta bilixaad iyo sideedaad iyo barta gaar aynoo ahaato waqtigaas waa 6 sano iyo 7 sano ka waxaan leeyahay maanta joognaa shaqaadkii lixaadkaad sheegayseen annagu waanu idiin samirnay laakiin ubadkiin waxay u baahan yihiin iskuulkaa u dhow ee idinkuna kaga warhayn kartaan subax walba xataa ma barideen baad odhan kartaan intaad nagu soo leexataan ayaadna weydiin kartaan ubadka tayadoodii xaggii waxbarashadu u marayso laakiin inaad suuqii tagto ood ilmahaaga yaraa tayadiisi waxbarashada ogaataa maalin kasta waxay kaaga baahan tahay socod iyo waqti bay kaaga baahan tahay waxaan odhan lahaa waalidiinta xaafadda degan inta badan dumarku maa nagu cag badan oo aabbayaashina waaragna runtaa wanaagsani dumarka weliba waxaa khaasatan faraya bal ubadkan yareed waxa weeyaan aad suuqa iyo aad ka dhaadhiciseen meel hiblaayo inaad iskuulkii xaafadii inaad ogaataan iskuulku runtii maanta alxamdulilah meel wanaagsan buu taagan yahay meel looga cabsi qaba ma taagna wixii maalintii aan ku tabcaynay aan islahaa bal maalintuu wax noqdo xilli bay noqon doontaa maalintaan joogaa alxamdulilah klaaska afraad ee maanta soo qabanqaabiyey xafladda si gaaraan ugu mahad celinayaa oo isagu dugsiga hoose gudbayo u gudbayo dugsiga dhexe runaantii waxaan aaminsanahay haddii ay maanta tayo waxbarasho noqoto iskuulkeena inay taalo balse waxaa jirta waxyaalaha qaar inta badan bulshada ka dhaadhacsan iminka dugsiyada dawliga way noognahay inkastoo wasaaraddiina la fadhido oon jeclay inaan kusii yara fogaado dugsiyada dawligu markii bilaash laga dhigay waxay noqotay in tayadii waxbarasho ay hoos u dhacday bilaashku wuxuu keenay in macallinkiina uu isdhigto ilmihi yaraana uu isdhigto laakiin ardayga marka fiida la weydiinayo waalidkiina wuxuu la xisaabtamayaa macallinkiina wuxuu la xisaabtamayaa ardaygii iskuulkana waxaa kaloo faa'iido leeyahay ogtihiin iskuulkaa 200 ku dhow waxaa bilaasha 740 arday oo naan lacag ka qaadin oo ilaahay nagu ogyahay 740 ballan baan idin qaado waxaan idhi xaafadda baahiyada waan dareemi karnaa waa xaafad magaalada go'doon kaga jirta waa xaafad aan inta badan haysan baahiyihii bulshada u baahnayd oo iminku adeerkaysiin jidkaa inka xaafaddeena loo soo maraysay waxaa adeerkaysiin iskuul maydaan lahaan jirin oo iskuulkaasaa idinku horreeyey isbital wanaagsan ma haysano msiyadkaasaynu haysanaa 4 neersay joogaan waxaasoo dhan haddaba waxa loo baahan yahay inuu gacanteena ku bedelno 740 maahe waxaan u ballan qaadayaa inuu ilmo kasta oo baahi hayso oo xaafadda lagu hayo oo waalidkiisu awoodi laayahay inuu iskuulkaa imaado horena waan u sheegay qaarkood baanu buugta u iibinaa weliba qaarkood baanu nihi xataa haddii loo awoodi waayo inaan anagoo macallimiina balcadooda iska jarno oo maanaan iman macaasha waxaan u nimanay baahida xaafadda taalla inaanu wax badan ka qabanno ilaahay agtiisana aanu dhigano ilaahay agtiisana inaanu dhigano waayo aadamaha waxa laga yaabaa sidaad ka filaysa inaanad ka heli laakiin ilaahay baa mar walba agtiisa wax laga helaa waxaan ugu talagalnay markaasi ubadkaa inay da'yartaa ee duruufo awgood loogu hayo guryaha in laga soo saaro oo la keenay iskuulka oonu wax barno kollay waanu taaganahay 7 subaxnimo 12 duurnimo waan taaganahay laakiin ogolaan mayno ilmo yaroo baahi iyo duruuf guriga loogu hayo aqoon darrana ay hayso ogolaan mayno taa ee waxaanu jecelnahay inaanu ubadkiina gacan qabanno wax badan aanu waxbarashadii iyo hadday noqoto baahiyii kale xaafadaba inaanu wax badan ka qabanaan jecelahay
runtii inaan hadalkan ku sii dheeray uma talagelin laakiin iskuulka waxaad la socotiin inuu ahaa iskuul aanu ku furnay dadaal iyo juhdi dheeraada idinka laakiin inta maanta hadhani waxa weeye waa intii waalidka runta marka laga hadlo waa intii waalidka waxaa jira qaarkood halkan laba keenay saddexna geynaya waa beri iyo hudiya geynaya mar haddaan laba noo keentay saddex kale maxaad noogu aamin laha waxa weeyaan ubadkeena kala reebaysaan inaad ku daysaan inaad ubadkiina wada keentaan iyo quruxda ku jirta annaga aad nagula xisaabtantaan tayadoodii waxbarasho inaad nagula xisaabtantaan waa waajibna saaran weeyaan barefadka wada tiim iskuulkaasi wuxuu leeyahay barefad bilaash uu leeyahay anigaa furay lacag kamaan qaadin ardayda iskuulkaan furay oon gelinka dambe uga dhigay inay bilaash ku dhigtaan si ay tayadooda uga sarrayso iskuullada kale ardaygii baahnaa ee barefad loo awoodi waayey xataa u imaadaa lacag la-aan buu ku dhigtaa wadageedana markhaatibaad ka tiiya inta halkaan aanuu soo guurnay uun baan iman oo ah bishaa keliyanu halkaa ku jirno laakiin wadageedooda awalba way iman jireen ardaydu barefadka waxay ku dhigan jireen bilaash ayay ku dhigan jireen gelinka dambe habase ahaato waxaasoo dhan waxaan u samaynaynaa waxa weeye kow tayadii carruurteeda iskuulka inay noqoto tayaada u sarraysa in waalidkii ay ku qancaan waxbarashada iskuulka taalla iyo inaanu ubadkeegii lexjeclaanu ka qabnaayo ay noqdaan kuwo beri mustaqbalkooda ku filan idinkana idinku filan waxna idin tari kara lafoogana wax taransan kara ardaydana hal midda odhan lahaa waxa weeyaan macallin baa beri maalmaha ka mida macallin baana dadaaro wuxuu yidhi ardaydu way kala baxayaan markaa fofoorka wuxuu yidhi macallin ardaynaasoo kala bixi doontaan waxaad u kala bixi doontaan dhowr qaybood nin waasha oo dee waayuhu waala iyo wakhtigu nin dhinta oo dee saacadda u timaado mid guulaysta oo hamigiisa iyo meesha ku fikiraya gaadha iyo mid noloshaba ka dhaca oo saaqida afartaa ileega buuri afartii uu macallinkaasi sheegay maanta uu nool yahay afartii buu jiraa arday badan isu kalaasaan xiskoogiiba waayeen qaar badan way dhinteenoo way tegeen qaar badan noloshay ka dhaceenoo waa kuwa suuqooda socda qaar badanna way guulaysteen waa saksiso waa kuwa maanta bulshada waxtar leh ee dhaqaatiir leh ee macallimiin leh anigu waan ka mid ahay macallimiinta ee dhaqaatiir leh wax walba marka waxa weeye wax odhanaya ardaydana waa la kala bixi doonaa inkastoo yeertiyo waalaba ayna waxba ka garanay laakiin waxaan odhan lahaa dadaala adeerayaal dadaalo halkaa dadaalkiina ka sii wada arday tayalaatiin waan idinku faraxsanaya tayadiina arday aan ku qanacsanayay baa tiin meel kastoo tagtaana qayrkood ugu horrayn doona waalidiintana waxaan leeyahay waxaan idinkaga tegayaa aan idinku macasalaamaynayaa iskuulkaasi iskuul khaalid leeyahay maaha marka la idhaha khaalid baa aasaasay dadka qaarba waxay moodaan dadka qaarba marka halkaa mare waxay dhahaan wakaa ninkii iskuulka iska lahaa qaarba xataa igu daro wakaa ninkii buurnaayo iskuulka iska lahaa laakiin abase ahaato waaruna qof walba waxoogaa calaamad gooni u leeyahay midbaase jirta waxaan odhan lahaa iskuulkaasi iskuul anigu aan leehay maaha waa iskuul ay xaafaddu leedahay waa iskuul ay bulshadu leedahay anigu saacad baan leeho waan tegi karaa oo waan dhiman karaa maahe ilaahay waxa weeyaan meel saduu geyn karaa maahe wax kastaa iman kara caafimaad darra iman karta ilaahay baa inaga hay laakiin waxaan leeyahay iskuulkan xaafadda iskale waa hanti idiin haraysa waa hanti idiin taalla laba mid kala doorta inaad iskuulkiinaa xidhaan oo ubadkiinu ku lumaan dooxyadii iyo daaladkii dabaylihii iyo inaad iskuulkiinaa dayac tirataan ood ka warhaysaan ood ubadkiinii keentaan ood waxa weeyaan idinku xataa shaqooyin badan buu leeyaho hadday waashmaan noqoto hadday dumarkii wax ku iibinayay noqoto hadday xaadhitaan noqoto hadday macallimiin noqoto wuxuu ku soo kordhinayaa xaafaddina shaqaabuur badan waan jeclaa hadalka inaan intaa idinka badanba sii haysto hadalka ima dhigo laakiin waxa weeyaan haddana marti badan baa joogta meesha waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba iskuulkeennaas aynu ogaano aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي حفصة. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. أين تسكنون؟ أتسكنون في حي شيخ عثمان. ما اسم مدرستي التي تدرس؟ مدرسة مستقبل. متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة في
إلى المدرسة 7 الصباح. كم يوم تدرس في الأسبوع؟ أدرس في الأسبوع 5 أيام. ما أيام العطلة في الأسبوع؟ أيام العطلة في الأسبوع يومين. متى في حصص اليوم؟ ستة حصص. شكرا. عفوا. ardaydaasi waa arday yaryar oo fasalka saddexaada aad ayay u fiican yihiin. iminkana waxaan mikrofoonka kusoo dhaweynayaa maama Xaawo Maxamed Waaberi oo ku hadlaysa afka maamooyinka xaafadda Sheekh Cusmaan. aqoonyahanada maxay helaan gudoomiye ku-xigeenka maamulaha maxaa la yiraahdaa wasaaradda tacliinta yana kaga salaamaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بإسلام كيان السلام يا ما كلامك السلام يا والدينتا يا أرضيدا دمان حافظ الشيخ عثمان قارهان حاسمية أنا السلام يا دمانتين سلام مسلم كيان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kaloo markan maxay heedaanay iskoolkayga mustaqbal waa mustaqbal oo waa iskool aad iyo aad maxay heedaanay tayadiisu u wanaagsan tahay waanan maxay heedaanay aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay aad iyo aadna wallaahi run ahaantii uu noo maxay heedaanay aad iyo aad noo maxay heedaanay noo cajabiyey waxa weeyaan annagu xaafadda maxay heedaanay xaasley haddaan nahay caruurtayada walwaliyo walbahaar badan yaa maxay heedaanay nagala soo darsi jiray daadadka maxay heedaanay dixda ayaa naga qaadi jiray inta maxay heedaanay buugoogii iyo balcadoodii ay ku luntay aw maxay heedaanay qaaday tiriya cadad ma lahayn maxay heedaanay waalidiinta kale sii doonaysee ilmahaygiiban maxay heedaanay daadka ka soo tallaabin leh maxay heedaanay daadku maxay heedaanay yadna gundiyada ilaahay maxay heedaanay ka reebay inta aw qaadee kuba tagtay xaafadda xaasleyda aad iyo aad bay maxay heedaanay dhibaato u qabtay maxay heedaanay baahiyadoo iskool baahidii maxay heedaanay iskoolka alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta mustaqbal iyo baahi oo dhan naga reebay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa. waxa weeyaan walaalayaal iskoolka waa inaan haddaan waalidiin nahay aad iyo aad aan garabka u qabanno oon maxay heedaanay la tacaalo oon la dadaalo oon maxay heedaanay maamulaha iyaga khaalid aan garab gallo oon haddaan maxay heedaanay waalid nahay aan waxa weeyaan aan si fiican ilmuhu waxbarashadiisu waa guriga weeyaan xaafadda weeyaan hooyadana weeyaan iyo waalidka adigu dhammaan macalaabaha waayo uu dhigi karaa hooyaduna waa dhigay odhanaysaa way la dadaali karaysaa oo maaragtaanay waalidka ayaa u iskoolku maxay heedaanay ka dhismaa. kolkaa waxaan doonaynaa inay waalidku dhinaciisa isaguna garab galo oon la dhisno oon la qabanno oon maxay heedaanay isaguna aad iyo aad buu maamula khaalid aan noola dadaalay hadday asluubtii ubadka tahay hadday maxay heedaanay tayadii iskoolka tahay ilmaha yare ee maanta maxay heedaanay koobaad dhigta ayaa maxay heedaanay ka shanaad ama lixaad dhigta ka tayo badan oo maxay heedaanay wax qoraalkiisuna ka fiican yahay maxay heedaanay tayadiisuna ay ka wanaagsan tahay ka labaadka dhiga ka saddexaadka dhigtana hadalkooga badaa. kolkaa waxa weeyaan caruurtayadii aad iyo aad bay iskool wanaagsan iyo tayad wanaagsan u haysataa. waa ilaahay mahadi weeyaan. waxaanan ugu mahadnaqaynaa 100% kayada ee noo fikiray ee waalidka u nahay ee noo fikiray maxay heedaan halka iskoolka nooga furay ayaa 100% ugu mahadnaqaynaa. haddaan anagu waalidiintii xaafadda xaasleyda haddaan nahay
afayeenkii waalidkaa oo dhan haddaan maanta maxay ahaydaan halkan anu ka hadlay waxaan ugu mahadnaqaynaa 100% yaa wasaaradda tacliinta ee noo daadahaysay iyo inankaa maxay ahaydaan iyada waalidkaanu nahay iskoolka noo furay ayaan 100% ugu mahadnaqaynaa daadkii iyo rifaadkii waan ka raysanay walwalkii ubadka naga haysanayeen maxay ahaydaan kolal iyo kolku roobku soo onkado runaantii kolle waan ka farxayna kolle waan ka naxayna yaa kol waan ku farxayno waa dee nimcad ilaahay noo keenay kolle waan ka naxayno waxaan ka fikirayna balcadiya buurtiyo ubadkiihaw naga maxay ahaydaan naga qaadayay intiiba waan ka raysanay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaanan ugu mahadnaqaynaa 100% wasaaraddeeda noo soo daadihisay iyo maxay ahaydaan maamulaha yaga khaalid baan ugu mahadnaqaynaa inanka yaga insha allah biidnillaahi kariim sidaa iyo si kasii fiican ina maxay ahaydaan kasii badino oo maxay ahaydaan kasii tayadeedu kasii badato oo mustaqbal magaciisa iska mustaqbalka iyaguna noo hagaago caruurta iyaduna noo hagaagto insha allah biidnillaahi kariim sidaa iyo si ka wanaagsan caruurtana iyada waana ayaan leehay hooya isoo barbaara iskoolkiinaana iskool tayada oo wanaagsan weeyaan waa inaad inaguna aad iyo aad ugu dadaashaan ood maxay ahaydaan maamuladiina macallimiintiina si fiican aad ula xidhiidhaan ood maxay ahaydaan hadalkooda maqashaan ood waanadooda maqashaan waxbarashadooda maqashaan way inii dadaalayaan way inii maxay ahaydaan iniga iskoolka laynii furay waxaa weeyaan inaad inaguna dadaashaan ood maxay ahaydaan iskoolkana aad iyo aad tayadiisii iyo waxbarashadiisa iyo wanaagiisa yaa aad ugu dhaqaaqdaan weeyaan hooyo inagana intaasaan inagu waaninayaa caruurtaydi waalidkana saaya si leeg inuu maaragtaan si fiican isaguna aba maamul hala dadaalo ha u yimaado aba macallimiintaba ha ku dhiirageliye inuu si fiican loo dhiirageliyo caruurta ayaan iyagana maxay ahaydaan u sheegayaan insha allah biidnillaahi kariim waxaan halkaa maxay ahaydaan anaguna soo dhawaynaynaa si fiican iyo si fiican iskoolka iyaga waanan ku faraxsannahay marraa waaxid aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxbarashadiisa tayada leh waan ku faraxsannahay dhawaanta uu noo dhow yahay oo aqalka iyagii aqalkii ku xigan yahay waan ku faraxsannahay ilaahay bay nuurtuu nagidahay wax kala kula faraxsannahay iskoolkii aan u dalandoolaynay kolka waalidka loo yeedho maxay ahaydaan halkaa ka baxayneen saacado usii soconaynay oo imka kadinkii noo ah oo koladii kolka waalidka loo yeedhabahow kadinkii maxay ahaydaan aqalkii uun galayo alxamdulilah rabbilcaalamiin xaafadeennu way u baahnayd baahnadeena ilaaha weyne waaxidkaa waa la noo dhameeyey insha allahu waa kaa sidaa iyo dee nabadgeliyo hadalkaas ii badin maayo assalaamu calaykum waraxmatullahi naga dhigay dad muslima marka labaad waxaan u soo noqonayaa inaan salaamo maamulaha iyo wasaaradda iyo cuqaasha ka soo qaybgalay waalidka ardayda iyo dhammaan qof kastoo ka geystay dhankiisa inuu iskuulkani uu dhidibadiisa isu istaago anigoo ku hadlay afka qurbajoogta ah waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inaan arko wiil walaalkeena oo fikirkii habeen iyo dharaar ugu soo jeedayay maanta midhihiisii aan wada arkayno iyadoo ka bilowdeen 12 ardaya ayaa maanta waxaad maraysaan 200 oo arday taas waxay ku tusaysaa dadaalka la geliyey iyo caqliga iyo aqoonta la geliyey sidoo kale macallimiinta 6 ah ee har iyo habeen u soo jeedayay in ardaydani ay noqdaan kuwa la arki karo tayadooda iyo maxay ahayd caqligooda in la koriyo ayaa iyaguna maxay ahayd mahad mudan anigu laba arrimood ma isu taagi lahaa qurbajoogta inta badan waxaa maxay ahayd aad moodaan inay yihiin dad aad iyo aad wax badan u qabtaa laakiin mararka qaarkood haddaad u fiirsatana magaalada boorama xaafadooda waxaa laga soo biiliyaa wadogtiinoo qurba iyo mooyaane marka anigu maanta waxaan isu taagayaa anigoo u mahadnaqaya maamulaha iyo macallimiinta laba arrimoodna midna ku wajahan waalidka midna ku wajahan macallimiinta waayo marna waxaan ahaa macallin 12 sano markaan maaleeshii wax ka dhigan jiray waxaan dhigi jiray dugsigii la odhan jiray
International Islamic College waxaan aad iyo aad markaas u aqaanaa habka markaasi loo horumarin karo ardayda tayadooda iyo macallimiintaba macallimiin waxa idin leeyahay idinka kalsoonida aad u haysaan inaad wax ardayda bartaan ayaa iskoolkan gaarsiin kara 200 oo arday ma aha ilaa 200 oo kun oo arday kalsoonidaasi waxay idin siin kartaa oo idin gaarsiin kartaa in ardaygan uu noqdo markuu jaamacadaha iyo dugsiga sare uu gaaro in la yiraahdo macallinkii soo baray ayuu ahaa heblayahay iyo hebel buu ahaa kalsoonida waxa dheer waliba inaad daacad ka tihiin in ardaydan berri maalin maalmaha kamid ah ay noqdaan kuwa hogaamiya xaafadan aynu joognay xaasliida macallimiinta waxaan u raacinayaa mid saddexaad waxaan leeyahay macallin oo haylaawin mar walba xaqa uu kugu leeyahay ardaygani kaasun baad ilaahayna ugu dhawaanaysaa ajarkiisana aad ka helaysaa macallin waxaad ogaataa marka adiga iyo waalidka ubadka dhalay aad saaxiib noqotaan ee aad arday walba u sheegto waalidkii dhalay grade-ka uu keenay iyo halka uu joogo iyo halka uu waxbarashada ka marayo kaas ayaa keeni kara inuu waalidku albaabka ka soo galo oo yiraahdo contribution-kayga iskoolka lagu horumarinayaa waa kan haddii laakiin aad intaad ka seexato waxaa iman doontaa inuu arday walba ilaahay kama barine uu albaabka ka baxo midna waxaan u soo noqonayaa waalidku waad ka soo baxdeen waajibkiinni ardaydii ciyaalkii aad dhasheen iskoolkaad keenteen laakiin maxaa laydiga baahan yahay markuu ardaygu guriga yimaado ee aad wax siiso ee uu nasto waxaa loo baahan yahay inaad tidhaahdo hooyo soo qaado buugga oo akhriso haddii uu maanta cashirkii loo soo dhigay ardaygaasi dib u eegi waayo berrika maalin waxaa imanaysaa marka la yidhaahdo imtixaanka u soo fadhiiso inuu ardayda kale ka dambeeyo oo uuna gaadhin halkii la rabay macallinka iyo waalidka iyo maamulaha iyo dadka wasaaraddu haddii ayna wada shaqaynin iskoolkaasi ma wada soconayo waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa anigoo maanta ku hadlaya afka qurba joogta ah wasaaraddan la hadlayaa wasaaraddu waxa weeye tahagta iskoolada gobolka oo dhan waxaan leeyahay iskoolkan wuxuu idiiga baahan yahay kunjeer wuxuu idiiga baahan yahay inaad ardayda yaryar ee hooyooyinkood iyo aabbayaashood keeneen inaad u hiilisaan baa laydiga baahan yahay ood ugu hiilisaan buugta ood ugu hiilisaan caqligiinna ood ugu hiilisaan inaad iskoolkan inta yar ah aad iskool weyn ugu beddeshaan wasaaraddu way karaanay wasaaradda mid kalaan ka codsanayaa oo aan leeyahay macallimiinta iyo maamuluhuba waxay idiga mutaystaan ku dayasho fiicane in iyagana si gaara loo eego oo wixii ku saabsan kobcinta iyo horumarinta iskoolkaba aad kala hadli kartaan hadalkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa ardaydaas maanta halkaa fadhidaa guulaysatay hooyooyinka halkaa fadhiyaa guulaystay maamulaha iyo dadka ka soo qayb gala dhammaantood way guulaysteen baan leeyahay annagoo idingala soo qayb gallay ayaa dareenkaygu wuxuuna tusayaa inaanu guulaysanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga saddexan yaxye daahir jaamac kuna matalaya geedi yaxye waxa uu ku matalayaa aaba geedi cabdiqani magacayga saddexan waa cabdiqani ilma cabdilaahi oo ku matalaya qayre cabdiqani waxa uu ku matalayaa qayre cabdirashiid ila diiriye magacaygu waa cabdirashiid ila diiriye oo ku matalaya wacays cabdirashiid ila diiriye waxa uu ku matalayaa wacays maxamed amiin anoo magacayga ku matalaya amiin xasan cabdilaahi oo ku matalaya hufan amiin waxa uu ku matalayaa hufane degan waryaa ardayda ha fadhiistaan kuwa dambe ha fadhiistaan si ay ardayda dambe u aragtay ha fadhiistaan magacaygu waa degan
دقة waxay ku bedelaysaa mina jadiid ha fadhiistaan ardaydu si ay ardaydu dhammaan iyo waalidiinta ay u dooradaan riwaayadda ha fiican tahay أبو أنا أنا في عنتاي هو في عنا سكيرن أبو سكارة في عنتاي هابو في عنا سكارة مصدق سكوتي برشدنا كورما وفي عنتاي في عنتاي حفظي كورما واسكفين عليه سكيرن هكا جوتا حافظة جونا نقول مريانا أبو حافظة جونا ولي أدو أدو لا تكبتي محاك هذا عليك أي باب إذا أنا أنا أبي ما قدش مكان حسيتي مكان أدو دوت ما أنا أكتر جوتا وأنا أضيو كذب أي بصارت أي كاركينا وأي ما بدنا أي ما أي ويبوا شجوب واي واريتي أبو هاي هيا بسلامة أبو لبدنا أو بابلي كايرنا أبغى كيشوفن إنه هو أبو أبو سيرتي في عنا هاي وفي عنا يا أبو برشلونة وديتي سوما أبو أنا دكنا أبو قبلنا عم بردي ده وحبرشلونة برتالي أبو محل وحبرشلونة كتير إيسا ما ضمن وحبرشلونة كده أبو أبو شداني كتير إيسا إيه بلان كده أنا أبو كده فرقين سوا ما سداسة ونحن في عنا سعبيان وحافظي سهلا أنا حافظي أبغى بالله إذا مقالة هيمي وراني عهد واحد رشلة يقولوا وراي في عني لا قواش نادو وراني أتيه والدبي شيء ويري أنت على واحد رشلة جديدة وراني ما مدو ما كان سكول كم كربا حلقة إلا سكول بكبايا ودا إمريكا بانا كان أنكر وايه ميدان درنا وايه وانو ترنا وايه ويا أبوي حاجة سكتشوا عن مسجد مرور أبوي وحبوا ترنا ميدا هيا أبو وعيسو هذي وادي دمائنا سكول كديتي وحنا كنترنا ميدا سلاخلي أو ما سوى يا شيء هابو أقول أنا اللي ترى يا قاعد كسا ويا هروي سامية هاي ترى ناس قهوة كسي دكتور قاعد على صار وين براي ما خذ شيء كذا ما يواش أبو سعيد هذا القدرة أنا سعيد مياه وأنا سعيد أنا كسيلة هاي أيا أميري أبو شهيد ما كروان ولا أميري ما تقول ما يسا أنا سعيد هاي رخص هو أكله
وشاح وبلا شرده أيها أرسل كنت بعد ما تسعد أو مراجع الشغل إيش صنيك أنا حال شغل محمولة أنا قاعد تيرنت لحظة وارد يقول بعض ولا سلالي وحشابي عليه سعيد علي لحظة كوري سنة دعر أرجع ما واحد تدعر ما يرى هذا بس يا عران والله هو ملك في عتاي شورا بحبان أيام شورا يمين أي محاسة خير بنا يا إلى ما جرى أروح على الملك يبدا تاسوا مربا والأفر أولما ديابا أول كوكري أيوة فالكان وحسيس صح وشان يوم هنسكتشنه هالكان سكدي هاي سايا ولا عندنا الكيك كسر مداي بالبلدي ما كان مدوم ومحل عاقد كسيدا أنا قولا لا بالعاقد سكتوا راقي خير تكاو ريان ما عندنا وهبلاي ما تمحي سكوري أبا تريتي أبا نبت ما أنا تنابو لحقولتي أنا قولي ومحل أنا كفشل دوالين كيني أبي أنا قوتي ما أنا لا بقولي ما أنت أريد ولا يجي أنا سوقا أيا كاين ياري بتعودي بيني كوني سيد أبا بيربو أنا تاني محاول حوالي تقف عيسى وأبا البارة أبا إذا أبلي كاير ولا تختارون وياك بلا كل يوم يجرب بالله أبا واحد يمشي سوا عيسى هلكي نوك هذه حفتة أنا كان أبا قال ما كنت بنت ربع وقت قلت يا عيب تيجي شو حسوستا يا imikana waxaan u yeerayaa Saleebaan oo ku hadlaya ururka samafalka afka ururka samafalka ha ku soo dhawaado Saleebaan aad bay iga qosliyeen ardadan aadka u da'da yar leh sida ay u soo agaasimeen riwaayada ama mutaajisle siyaasada dhalinyarta ah sida ay u jilayeen riwaayada aad baan ula dhacay waa dad wax la baray aqoonna la baray siday hadalka u dhigayeen waad mahadsantii waad naga qosliseen baan leeyahay waa ardayda ciyaalka iskuulka mustaqbal hambaliya baan leeyahay aqoonna way ka muuqataa qaabka ay u hadlayaan waa dad maskaxdooda iyo cilmigooda la dhisaan odhan karaa hambaliyo iskuulka mustaqbal waxaan leeyahay hambaliyo halka aad maanta taagan tahay waxaan u soo kacay goor gaaban hadalkeed gaabane inaan idin hambaliyeeyo waalidiin arday macallimiin maamul hambaliyo ayaa iyo waalidiinta ku soo dadaashay iyo xaafadda xaasleyba hambaliyo midhaha aad gaadheen waan idinku hambaliyaynaynaa 100% waxaan idin leenahay halkaa iyo meel saraba hiigsada oo gaadha ayaan idin leenahay sidaad ardaydiina waxbarashada ula jeceshihiin macallimiin iyo waalidba hambaliyo ayaan idin leenahay iskuulkana waxaan leenahay kor oo koba 12 arday haddaad ku bilowdeen maamul iyo macallimiinow maantana 200 baad joogtaan kumanaanna gaadhaan leenahay halkaa iyo meel ka sarreysa ayaan idiin rajaynaynaa iskuulka xaasleyda in badan baan iman jiray xaafadda xaasleyda iskuul lama lahaan jirin
aad baan ugu hambalyaynaynaa dhallinyartii aqoon-yahankii ee u fikirtay ee maskaxdooda u maashay inay dadkaasi hayna biyahaas ku dhicin halkaas soo mari doona iyo bacadka ayna sii marin oo ay u sameeyaan iskuul u sameeyaan xaafadoodii inay ka soo toosaan iskuulkii soo galaan waa ilaahayna hadi ayaan leehay waa fikir dad aqoon-yahani dhiseen falilaahi alxamdu ayaan leehay anigu waxaan halkan ka leehay haniyad jabina halkaa ka sii wada xaaslaydana waxaan leehay kolley haddii maaragtaana iskuul laguu furo waxaa laydinka baahan yahay inaad macallimiinta ana niyad jabin ood u hiilisaan maxaad ugu hiilinaysaan ardaydiina ugu hiiliyo u keena say niyadu helaan ardaydiina u keena waa macallimiinta yale halkaa maanta waxaa nooga caddaatay ardaydaasi siday u dhisan yihiin kuwa carabi ku hadla kuwa riwaayad noo jiro dhaga qosliya waa dad maskaxdooda la soo dhisaan odhan kara anugu marka bal ku daydo oo waalidiintii hore u keenay iskuulka ha lagu daydo oo waalidka kale xaafadda keenin ha loo sheego iskuul tayale inuu ka furan yaho mustaqbal laydhaa wax kastaba mustaqbal unba la sii higsane hadalka dhigu gaabin maayo waa ila isbaxayo xaaslayda ka baxayaan lehay mustaqbal waana ku mahadsantihiin maamulka iyo macallimiintana aad baad u mahadsantihiin saad noogu soo dhawayseen annaguna halka ayaa ka sii sarraysa tiigsada ayaanu leenahay walilaahi alxamd soo dhaweynayna mikrofoonka macallin Fahiime oo ku hadlaysa afka macallimiinta Usma macallin Fahiime baan ugu mahadcelinayaa waalidiinta ardayda maamulka iskuulka marti sharafta wasaaradda dhammaan waxaan ugu salaamayaa saxaabada islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta waxaan ahay baraka hawlgala iskuulkan mustaqbal intuu iskuulkan waa iskuul aad xaafadda xaasidu ay aad ugu baahnayd oo baahi weyn loo qabay maasha allah maanta waa iskuulka xaafadeeda loogu yimiday waqtiyada qaar waxaa jira markaan anagu ardayda ahayn ama ciyaalka naga yara walaalaha iyo waxaan kala go'doomi jirnay ama daadiman jiray ama masaafo dheer ilmaha yargeli jiray marka uu iskuul naga dheer aaday oo kale marka alxamdulilah baan leenahay iskuulku baahi badan buu leeyahay iskuulku gurigu ku jiraa hadday waxbarasho noqoto miisas buugaag wasaaradda waxaanu ka codsanaynaa inay baahidan ila ogaadaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب وخلق الإنسان وتنزيل القرآن يا ربي يا رحمن شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب وخلق الإنسان وتنزيل القرآن يا ربي يا رحمن maamulaha dugsiga wasaaradda macallimiinta walidiinta sharafta leh ardayda soo koraysa ayaan ka salaamaya anigu waxaan ahay waxbarashada dadka waaweyn ee galabtii dhigta wallaahi waxaan garanayaa aan ba'du meelay ku qoran tahay garanay laakiin maanta ba'da iyo jaada iyo xiriirinta iyo af Soomaaliga intaba waan garanayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle hadduu ilaahay noo kale anagu caqabadaha intaan fadhiidahay meelaan wax ku baranno dee alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadale iskuulkaa soo koraan leehay soo kobcaan leehay kuwii ilaahay wanaag iyo sharaf ku waarayaan ilaahay ka weydiisanayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iminkana mikrofoonka waxaan ku soo dhaweynayaa maamula ku-xigeenka iskuulka mustaqbal macallin sacaada hakuu fariya tafadal والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحييكم إخواني في الإسلام أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كذب إلهي يا محد سكالي أولا نرت إلهي بمحد سكالي إلهي نقدر جيد إسلام اسمه كان مكان كان بركيسن اسمه كان يا محد سكالي وحنا هذا عليا إلهي يا مدن مرة كحيجا وحن يا هذين يا مرت شرف أنا جالس وقايب كشيء وسارد وخبر الشذا حاجة صحافة حاجة بتاعي لان ووالدنا حاجة بتاعي تستوى الجديدة وحاجة الأيام بهذا عليا مرة كحيجا والدين هي أرضينا بقطع السفالة أي ومحد سلم عن حفلة قيمها بدل أي جالس وقايب جلال مرة كحيجا وحوما سن أرضينا فار كتبت بيسا سنة كلها تدون تهديدا هذا دوس دحوا شناعة أو سفي عنوس أبابلتي حفلة أو يوم دجاجة يدوس عنوس حرية أيام يجرى وسلام يا بدون ما تنتهي ما لهاي فرد هذا المهر أو هذا ولا صار ما استرى وما تفرم هذا السعودي حق أقوام ذي النقطة حق إسفار كم حاجة تهدي سيء أقوام دي سيء وحبرش لي هذا النقطة أي الله مسوا هذي مرة واحد ما غير يعيرون هذا الهري لكن وأضم بيستي حفلة أصوات ليني سفي علينا حفلة يناود علي وأنت كيان ولا هذا يا إلي وبتكون وقعدان حاجة وحبرشة مرة ويري أنت وأنت لا صح لي لا وبتك إلى هذا كورا مع أقوام تودا مرة يجيان ولا هذا يا سيء وبتكون وقعدان أقوام تودا إلى معلمين زي ما عمل قدوس كذا لا صح لي وقعدان وحبرشة تودا وأي أرض يقول جيل لبيريو ولا صوت وستوسيريو marka geedku haduu marka ugu horeysa la beeray haduu qalloocdo hadhow toosada tiraahid uu jabaya laakiin bilowga hadii aad toosisid oo si fiican u beertid oo ogaatid ilmaha aqoontiisa iyo tayadiisa aad ogaatid si fiican ayuu wax u baranaya hadhowna midhiisa adiga ayaa goosanaya adiga ayaa maxay daanay oo aayaha iyo mustaqbalka wax ku noqonaya uu ku adeegaya haduu laakiin marka ugu horeysa ka liito wax barashada hadhow adiga kuma anfacaya wuxuu noqonaya ilmo jira oo beeraha iska soo socda marka العلم النور بالي والجهل الظلام علمنا والنور ويا قفه ونورنا يا قفه وحبرتي يا قفه كلا سبيل معها قفه الجهل جرده هو قف مدو أو مهدي كل شيء أو ميرها يسكتوا قويان إذا هنا مسلمين قفه وحبرتي يا قفه أنا وحبرا ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مسلنا قوة وحبرتي يا قوة أنا وحبرتي marka hooyo waxaan ilaahay ubadkiina la dadaala iskoolkiina ogaada aqoontiisa iyo waxbarashadiisa iyo xagga macallimiinta haday noqotay xagga ardayda haday noqoto ogaada la xiriira inii ayuuna inii dhisaya iskoolkan waayo maanta aad iyo aad loogu farxo xaafadeennii aad loogu farxo xaafadeennii uu iskool maanta inooga dhisan yahay inagoo markii hore iskool lahayn oo ubadkeenu cadceeda iyo daadka ay marayeen maantana uu xaafadii inooga dhisay oo wax aad loogu farxo oo qof kasta oo maskax leh oo ilaahay aqli siiyayba aw ka fikiro oo ilaahay ku mahadnaqo marka waa uu dambaystii xafladeena soo xilaynay ilaahayna si fiican ayuu inoogu dhigay xafladeennii si macaan bayna noogu dhacday sidaan doonaynayna noogu dhacday marka waxaan leenahay saa iyo si ka fiican ayaan hadda u dadaalaynaa dilaana insha allahu tacaala haddaan nahay macallimiintii iskoolka mustaqbal waxaan ku soo xidhi doonaa intaas hadal badan ma sii badinayo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة وحنا كسر حرنا أرضي أي حفلة لوقت تجارهن أرضي لفصل كأفراد أي لوقت وجود بيسع فصل كشمات. إني كلو وحنا يا الله ودي أرضي بدون سين لها معلمين تا هذه لا يوجد تلقين أرضي لا فصل كأفراد أي وحي أوصل حرنا معلمين تا هذه لها وحي بدون سين يا صريرة يوهي محمود أحمد. waxaa inta la guddoonsiiyay maamulka iskuulka macallin fudula iyo macallin sacaada mashruuc waxaan mikrofoonka u dhiibayaa maamulaha iskuulka si qurux badan oo gabagabeeyay waxoogaa waa yar shidanteeno waxa idinku kol bacda idinku kol laakiin intaa inka badan baynu qaadanayo ubadkeena darteed weeyaan xafladdu kolle way noo xidhan tahay reerigaynu iska tegi aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waalidiinta sharaftan aad iyo aad